Qiisada ayaa ka taagan xadka Itoobiya iyo Suudaan kadib markii ay warbaahinta Suudaan ku eedeysay maleeshiyaad Itoobiyaan ah inay dileen ugu yaraan 5 qof oo rayid ah oo u dhashay Suudaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahire ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni. warbaahinta qaranka Suudaan ayaa sheegtay dadka geeriyooday in ay yihiin 5 qof oo haween ah iyo ilmo yar oo reer Suudaan ah oo aan waxba galabsan xilli ay gudanayeen hawl maalmeedkooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa si weyn u cambaaraysay waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ka dhacay bariga dalka Suudaan taasoo ay geysteen baytiri maleeshiyo hubaysan oo raacsan dowladda Itoobiya. weerarka ayaa ka dhacay tuulo ku taala deegaanka Al-Fashaqa oo 5 kiiloomitir u jirta xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ay wadaagaan. waxaan si weyn u cambaaraynaynaa arrintaasi ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartoum. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka iyo ururada gobolka in ay cambaareeyaan falka foosho xun ee lala beegsaday dadka rayidka ahi ee waddankaasi. dhinaca kale mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Gadarif ee waddanka Suudaan ayaa sheegay 2 maalin ee ugu dambeysay in ciidamada Itoobiya si weyn ay u soo buux dhaafiyeen deegaanada ku xeeran gobolkaasi waa sida ay baahiyeen warbaahinta Suudaan. sida laga soo xigtay hogaamiyaha beelaha Darbakri ee deegaanka Basinda ee gobolka Gadarif Cabdulkariim Aadam ciidamada Itoobiya ayaa soo buux dhaafiyay dhulka xuduudda tan iyo markii ciidamada militariga Suudaan ay dib u qabsadeen dhul hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan ah. sidoo kale horjoogyaasha beelaha ee gobolkaasi iyo maamulka gobolka Gadarif ee xuduudda ayaa ka codsaday ciidamada militariga waddankaasi in ay sugaan amniga dadka rayidka ee ku nool dhulka xuduudda gaar ahaan dadka beeraleyda ee dib u bilaabay in ay degaan dhulkooda. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya maalintii shalay ay ku eedeysay dowladda Suudaan in ay ku soo xadgudubtay dhulkeeda dhinaca xuduudda. xukuumadda Addis Ababa ayaa sidoo kale ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xiisada ka alowsan xuduudda labada wadan. haddaba Nimcaan Xasan Ceydiid oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya. walaal waxay salka ku haysaa horta xadkan Itoobiya iyo u dhaxeeya magaalada khilaafku imika ka taagan yahay iyo Suudaan waa xad khilaafkiisu aad u horeeyay oo u noqonaya ilaa 1902 markaas oo ay xadka waxa sameeyay dowladda Ingiriiska iyo Itoobiya wala sameeyay heshiiskana kula saxday laakiin inta ka bacdi dowladda Itoobiya iyo Suudaan way isku haysteen balse laakiin waxa jirtay in dowladda Suudaan ayna markaa ayna chance u helin maadaama oo markaa dowladii Suudaan ay la dagaalamayso jabhado sida South Sudan iyo jabhado kale oo dalka ku furnaa ay la dagaalamayso oo ina xadkan magaranaysa Itoobiya marnaba ay soo jeesan balse laakiin xad mar walba khilaaf ka jira ayuu ahaa. sidoo kale waxa imika keenay xilligan waxa ku soo beegay waxa weeyaan waxa jirtay beeraley Itoobiyaan oo xadka gudihiisa ama mantiqada imika la isku haysto wax ka beeran jiray kuwaas oo badan ka soo jeeday axmaarada ahaa qolinkan axmaarada ahaa kuwaas oo imika intii dowladdan Abiy Ahmed dhalatay ay isku dayeen dhulkii berigii hore laga qaaday soo ceshadaan oo ku soo filaan Tigray oo kale dhul banaga qaateen sidoo kale Suudaan ay dhahdaan dhul banaga qaateen marka maleeshiyada qolinka kamid ah bay ku doodayeen dhulkoogu yahay oo doonayay inay rasmi u wadeegaan marka taas baa walaal keentay imika inay faraha arintu ka baxdo oo xadka la isku laayo imika dhulka boqolkiiba 80 ilaa 90 dowladda Suudaan baa ciidankeeda gacanta ku haya wali beeraladii wixii way sii joogaan maleeshiyaadkina wali way ku sugan yihiin dagaalku waxaan suurtagal ah inuu isku bedelo dagaal laba dowladood ka dhaxeeya una ku ekaan dagaal dowladiyo ka dhaxeeya iyo maleeshiyaad ka dhaxaysa. xiisada iyo qalalaasaha ka taagan dhulka xuduudda ee u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa bilowday tan iyo markii ay bilowdeen xiisada ka taagan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya taasoo sababtay in muhaajiriin badan oo reer Itoobiya in ay gaaraan gudaha dalkaasi Suudaan. toddobaadyadii la soo dhaafay ayay dowladda Suudaan dib u qabsatay dhulka xuduudda ee dalkaasi oo hore ay u haysteen maleeshiyo reer Itoobiya muddo aad u badan.